بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا طبعا ونكسن داوديال كنا سودو هذا موضوعيني أنا بالانسين أها الصومالية وحيكو بيرتي وقبلت كإست أفريقيان كوميونيتي هشيس كاس أو أي عدسطي عدنا أغلبية اللغة هذه سيدو كنا لا صحيحي أو أي سيدا مسترن ماب كان لو قدر يكدي محاحية حانوكو قبادي دونا إن شاء الله مقال كان لحظة بلود أن السعودة الصومالية محا ودي من أو أي تهيني كوصلنا مسترن الحسب أن السعودة marka hore intaana mawduuceena u gudbin waxaan rabaa inaan idin la wadaago khulaaso gaaban oo ku saabsan East African Community iyo waxa uu yahay heerarka uu soo maray insha Allah kusoo dhawaada qaybtan marka koowaad urur goboleedka East African Community waxaa la aasaasay waqti dheer oo aad u fog oo ka soo bilowday heerar badan soo maray oo aad u soo badbadalay runtii magaca looma aqoon jirin laakiin mar waqtiyada kamid ah waa loo bixiyay oo ay ka bilaabatay arrintaas oo ka bilaabatay 1917 markii Kenya iyo Uganda isu socodkooda dadka iyo ganacsiga ay aad u bateen ayaa waxay ku fikireen dalalkaas inay midoobaan oo ay sameystaan urur ay bahwada ku yihiin arrinkaas oo keentay inay ku midoobaan kuna heshiiyaan inay dadku si nabad ah u socdaan oo socodkooda uu aad u kordho oo ay sameystaan waax canshuuro oo hal meel lagu wada qaado guud ahaan la mid ah canshuuraha oo dalkan hadduu canshuur ka qaado oo ganacsiga socdo oo dhan kale laga canshuuri karin arrinkaas oo keentay in markaasi labadaas wadan ay ku guuleystaan kadib muddo 5 sano markii arrinka wadeenayna arrintii noqotay mid miro dhal leh ayaa waxay dib uga soo biirtay dawladda Tanzania muddo kadib waa iska burburay laga mashquulay kadib 1948 ayaa marka lagu laabtay ilaa 61 oo ahayd xilliyadii madaxbanaanida qaaradda Afrika ay markaasi diilada iyo fifaalada cusub iyo waji cusub ee qaaradda Afrika yeelatay kadib jaha wararkaas kadib 1960 haddana waa lagu soo laabtay dib ayaa loo yeegay magacyo kale oo kala duwan loo bixiyay sidoo kale waxuu noqday mid xoogaa iska daciif ah oo aan wax badan qabanin sidoo kale waa lagu laabtay mar kale 1984 ilaa 93 markii dambe si sax ah oo ururkii uu shaqeynay oo xafiisle oo xaramo loo sameeyay 1993 ilaa 1996 ayay qaadatay in markaas la hirgeliyo wixii lagu heshiiyay oo ahayd 1993 waxa lagu ballamay ama lagu heshiiyay in markaan la sameeyo xarumo iyo xafiisyo u gaara oo loogu talagalay in ururkan uu ka shaqeeyo loo sameeyo 1997 ilaa 1996 ayaa waxa lagu guuleystay in loo sameeyo xarumo sax ah oo u shaqeeyo inta loo soo waday guddi joogta ayaa loo sameeyay oo loo xil saaray ilaa 2000 laga gaaro guddigaas waxay ku mashquulsanaayeen guddi joogta ayaa loo sameeyay oo dal walba ka socda saddexdii wadan ee waagaas ku bahaysneed kadib 2000 markii la soo gaaray howlihiisii way balaarteen oo shaqadii markaan waxay noqotay si sax mid loo qabanayo waxa ku soo biiray dalalka sida Burundi waxa ku soo biiray sidoo kale oo dib uga soo biiray sidoo kale Rwanda waxa ku soo biiray Congo oo mar dhaweyd sii ahayd sidoo kale South Sudan oo ka sii horeysay ayaa ku lagu soo biiray intaas oo dhanba guud ahaan waxay isku noqonayaan dalalkaas 7 wadan oo ay Soomaaliya markay ku soo biirtay kadib 8 wadan ku noqotay Soomaaliya way codsatay muddo dheer waliba arrinkaas oo markii dambe noqotay cod aqlabiyada in lagu ansixiyo inay ku soo biirto dalalka bahwadaaga ku ah 8 wadan ee ururkan East African Community lagu dhahay inay noqoto xubinta 8 ee ugu dambeysay ku soo biirtay urur goboleedkaas inta kadib cod aqlabiyada marka loo qaaday waxa marka su'aashu tahay maxaa haray oo ay tahay in haddeer ay Soomaaliya maxaa u haray maxaa u dhiman oo ay tahay in Soomaaliya qabatay si markaasi u sii xajisato quwadeeda ah inay markaasi ka mid noqoto ayna sharuudihii lagu ka mid noqoto urur goboleedkan ka sii mid ahaata ay raahdo way ku jirtay oo heshiiskii wixii lagu ballamay lagu sii dhameystiray Soomaaliya waxa looga baahan yahay 6 bil ee soo socota inay wax ka qabato waxaan soo qaadan doonaa qodobada ugu muhiimsan wax badan baa jira laakiin waxa ugu muhiimsan kow in dastuurka Soomaaliya wax laga bedelo oo markaas loo qaabay inuu yahay East African Community baasaboorka oo muuqaalkiisa la bedeli doono sidoo kale midabkiisa iyo sidoo kale East African Community-ga soo ula jaan qaada bulug laga dhigi doono midabkiisa maadaama uu hadda yahay bulug tiqa oo bulug maari ah laga dhigi doona midabka kale ee ah buluga markaas bulug calanka oo kala sidoo kale waxyaabaha ugu weyn ee hor yaalla dawladda Soomaaliya waxa kamid ah wacyiga bulshada Soomaaliyeed oo ah ay tahay arrin muhiim ah dadka Soomaaliyeed inay soo dhaweeyaan oo ayna sidoo kale la jaan qaadi karaan isbeddelka dalkooda u galay iyo sidoo kale waxa loogu yeero isdhaxgalka bulsheed ee ay markaas dooratay dawladda federaalka Soomaaliya waxa saaran markii inay dadkeeda u tababarto ay fahamsiiso oo ay wacyigelin ku samayso inay dadka Soomaaliyeed ogolaadaan in la dhaxmari karo lagu noolaan karo laguna dhaqmi karo tusaale haddaan usoo qaadan dalka Uganda ama Kenya ama South Sudan iyo sidoo kale Congo iyo dalalka ka midka Burundi Rwanda ilaa Tanzania waxay ogol yihiin tuulada ugu dambeysay ee baadiyaha ah waxa ku noolaan karo qof ajnabi tusaale adiga Soomaaliga haddii aad beerahaagii Soomaaliya ku yeelay aad ku dhaqmi weysay oo aad ku noolaan weysay oo haddii ay ku sameeyeen sidoo kale dhibaato ka dhacday wax soo saarka beeraha ay hoos u dhaceen
si aad horumar u samayso aqoon cusubna u yeelato dhul qabow oo sidoo kale roobkiisa badan yahay aad degto Uganda aad tegaysaa dowladda markaas Uganda ayaad u tegaysaa waxaad ka codsan dhul in lagu siiyo dhul markaas dowladda waxay samaynaysaa iyada ayaa dhiirigelis dadka in dhul siiso isla marka dhul lagu siina waxa lagu leeyahay dhulkan tacbo oo falo oo ku beerayso oo sidoo kale wax ka soo saar sida ay documentary ogolaasho sax ah lagu siinay adigoo haysto oo qof Ugandese oo kula hadli karin sidaas ay beertaada ku falanaysaa wax soo saarka dalagga aad ka soo saartan ayaad ugu iibin kartaa guud ahaan dalalka 8 wadan ee bahwadaagta ku ah guud ahaan wadamadan markaas East African Community la isku dhaho marka waxa laga rabaa bulshada Soomaaliyeed inay tahay mid u diyaarsan inay noqoto dad u diyaarsan isdhaxmarka bulshada inay ogol yihiin dadka Soomaaliyeed oo lagu tiriyo bariga Afrika dadka bulshada ugu cunsuriyada badan uguna nacayb dadka madow iyo guud ahaan Afrikaankuba inay tahay loo diyaariyo inay markaas ogolaadaan in tuulada ugu dambayso inay ku noolaan karaan dad ajnabi ah oo si nabad uga ganacsado kuna shaqeysta meesha rabaan amaran taas oo qodob weyn oo looga baahan dowladda federaalka inay wacyigelin ka samayso tan xigta waxay tahay oo sidoo kale looga baahan yahay dowladda federaalka Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya loo diray inay tahay inay soo bixiso waxay tahay in markaasi guud ahaan nidaamka migration-kooda ama in loo tababaro immigration-ka guud ahaan iyo waaxda socdaalka inay u tababaran yihiin shaqaalahooda loo carbiyay loo tababaro sida loola macaamili lahaa dalalkan bahwadaagta la ah ee ku jira ururkan East African Community guud ahaan 7 wadan oo ay Soomaaliya 8 ku tahay hawl badan baa dhiman sidoo kale wali qaybtii immigration-ka ahayd qaybta ahayd